السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومعنا عقال iyo muuqaal kale oo xiiso leh oo ku saabsan barnaamijkii saddexleyda waxaan ku wadaa maantay saddex ha intaana gudagelin haddii aan ku cusub tahay page-ka follow ku soo biir muuqaalkana like iyo share ka hilmaami way ana gudagalno waxaan ku hayaa saddex ha oo horumarkaaga saameyn weyn ku leh hadba sida iyo inta sida ula falgashid ayay ku xiranta ha-da koowaad waa ha murmin muranka maaha wax badanaa faa'iido dhaliya waxaa fiican inta iska xadidi kartid ereyga muranka inaa iska xadid muran iyo waxaa kale jira wax la yiraahdo dood marka qof aad cilmi isdhaafsanaysiin ama aad wax isla dooda isdhaafsanaysiin oo rabtiin wax kala faa'iidiin ayaa waxaa la yiraahdaa dood muranku waxa waaye qof aan rabin inuu fikradiisa ka foqo adna taada aadan ka foqayn inaad maanta oo dhan aad isla doodin xitaa haddii aad tusaalooyin cajiiba keentid inuu qofkaas ku qancin asna hadduu keen adna aad ku qancin marka taas waxay noqonaysaa waqti dhumis marka inta kastoo aad ka fogaan kartid muranka waa inaad ka fogaataa xilligii jaamacadda aan dhiganaynay markii break la gaaro ayay ardaydu waxay u sameyn jireen aad iyo aad muran barnaamijka muran energy-gooda waxay ku bixin jireen muran iyagoo ka murmahaya ciyaaro dhacay rikooro waa hore ciyaaraha laga dhigay iyo hebel baa wanaagsan kuwo kale waxay ku murmi jireen xagga diima marka aslanba muranku ha bato ama ha yaraado waxaa fiican inaad wixii murana ka fogaat ha murmin marka hada labaad waa ha murugoon waan ogahay adduunyadan waxa waaye waa iska dhibaato baanta waxyaabo badan ayaa iska jira marka ha murugoon wax kasta oo dhaca insha Allah taala khayrkeeda ama bedelkeeda oo fiican ayaa la heli doonaa marka waxaan kugula talinayaa wax kasta oo dhaca inaad murugada aad yareysid hada ugu dambaysa oo saddexaad waa ha habaartamin ereygan waa erey aad iyo aad saameyn noogu leh waliba waalidiinta macallimiinta dadka kale tusaale ahaan markii waalidku ay ilmuhu wax ka haleeyaan ayaa badanaa sida dhaqanka Soomaali anaga Soomaali ahaan ugu badan inaan bilaaya ku qaaday bilaaya saas kugu dhacday waxaas inaan nidhaa adigoo u ducayn kara qofka ha habaarin sababtoo ah ducooyinka qofka la dulmiyay tusaale ahaan baawur baa saarnay musafir baa ahayd jidkii waxa ku gashay koox qowleysata ah waxbay ka dhaceen marka ducadaada waa maqbuul qofkaas musafirka ee la dhibay ducadiisa Ilaahay waa aqbalay marka adigoo u ducayn kara oo dhihi kara Ilaahow rabbiyow soo hanuuni Ilaahow rabbiyow adiga ayaa mahad iska leh maanta meesha joogan aniga aan igeenin habaarin oo hadhiin Ilaahow halaag marka ha murmin ha murugoonin hana habaartan waad ku mahadsantahay daawashada videogan fadlan share iyo like kuna soo biir page-ka YouTube-ka macna cigaal. Assalaamu calaykum warahmatullahi ta'ala wabarakaatuh.